kulanti wacan wanaagsan qiyaarteena daawanaysa halkani waa RTN ku soo dhawaada wararkii dunida oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa sargaal hore uga tirsanaan jiray dawladii hogaamin jiray General Maxamed Siyaad Barre ayaa maxkamad ku taala dalka Mareykanka waxa ay ku riday xukun kadib markii dacwad isaga la xiriirta maalmihii ugu dambeysay ay ka soconaysay Virginia sargaalkan ayaa lagu soo oogay dambiye ka dhana arrimaha bani'aadanimada oo la sheegay inuu geystay xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre ee gobolada waqooyi dagaalada ka socdeen sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamadii militariga ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre oo maalmahan ay maxkamadii uga socotay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xirbeegtigii qaadaysa dacwadiisa ay ku heleen mid ka mid ah laba eedayn oo loo haystay Cornel Yusuf Abdi Ali oo loo yaqaan Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas'uul ka ahaa jirdil koob iyo 30 sanadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Taani Warfa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaaraysa $500,000 Mareykanka oo magdhow ahaan loo siinayo Farxaan qareen ka tirsan hay'adda CJA oo u doodaysa Farxaan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay qaabka uu dhacay xukunka oo ay muddo dheer sugayeen isla markaana ay ku qanacsan yihiin xukunka haatan lagu riday Cornel Yusuf Abdi Ali Farxaan oo shakhsiga dacweeyay Cornel Yusuf Abdi Ali ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dambi looga galay mid ka mid ah wadamada Geeska Afrika loogu qaado dal shisheeye oo ah Mareykanka Cornel Duga ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya xilliga uu hogaaminayay dawladii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa Cornelka ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiil tababar fiican ku soo qaatay dalka Mareykanka sida uu sheegay qareenkiisa Joseph Peter oo isaga ku difaacayay kiiska loo haystay arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid si weyn warbaahinta Soomaalida maalmihii ugu dambeysaba ay indhaha ugu hayeen jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay cawaaqib xumada dagaalo daba dheeraado oo ka dhacaya gudaha wadanka Liibiya iyadoo sheegtay qaramada midoobay in loo baahan yahay in xal laga gaaro dhibaatooyinka colaadeed ee ka taagan wadankaasi qaramada midoobay hadalkeedan ayaa waxa ay jeedisay xilli 100,000 oo ruux ay ka barakaceen gudihii ay deganaayeen duleedka iyo gudaha magaalada caasimadda ee Tripoli kadib dagaalada u dhaxeeya dawladda oo hogaamiye ra'iisul wasaare Faiz Sarraj ee caalamku aqoonsan yahay iyo maleeshiyaadka uu hogaaminayay generaalka Khalifa Haftar xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan wadanka Liibiya ayaa waxa uu ka digay colaad si daba dheeraato oo ka dhaca gudaha wadankaasi waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay in xal laga gaaro colaadaha ka taagan dalkaasi Liibiya Gaassan Salaama ayaa ugu yeeray dhinacyadan inay wada hadal yeeshaan isla markaana colaadda iyo xabadda Liibiya ka taagan loo bedelo in dhinacyada ay miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan dhinacyada kala taageeraya ayuu ugu baaqay in la joojiyo taageerada labada dhinac la siinayo oo muujin karaysa cawaaqib xumo ka dhalata colaadaha ka taagan wadanka Liibiya oo sababi kara dhibaatooyin bani'aadanimo iyo dhiig oo sii fataha in ka badan 75,000 oo ruux ayaa ka barakacay guryahooda dagaaladii ugu dambeeyay sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO 510 kale ayaa warar ku sheegayaan in colaadaha Liibiya ka dhacay iminka ay dhibaato ka soo gaartay oo ay ku geeriyoodeen wararka naga soo gaaraya Lilongwe oo caasimadda wadankaasi Malawi ayaa waxa ay sheegayaan in doorashadii wadankaasi ka dhacday codbixintii durbaba la bilaabay in la tiriyo natiijooyinkii codadkii la dhiibtay 7 milyan oo Malawiyaan ah ayaa markii ugu horeysay codeynayay iyagoo isticmaalaya mashiinka casriga ah ee doorashooyinka loo adeegsado arrinta doorashooyinka Malawi ayaa waxay tahay mid si weyn indhaha ugu hayeen shacabkaasi waxaana tartamaya siyaasiyiin culus oo si weyn wadankaasi isugu hardinaya guddiga doorashada ee dalka Malawi ayaa bilaabay tirinta codadkii la dhiibtay doorashada madaxtinimada iyo baarlamaaniga ee wadankaasi guddiga doorashada waxay sheegeen in 5,000 oo goobood codadkii la dhiibtay ay soo gaareen xarunta tirinta codadka dhexe ee dalkaasi Malawi magaalooyinka Blantyre iyo Lilongwe ayaa la sheegayaa inay tahay meelaha ugu badan oo ay dadku isku soo baxeen doorashadii ugu horeysay oo qalab casri ah ay isticmaalayeen dadka codadkooda dhiibanayay waxaana 7 milyan oo qof ay codeynayeen doorashadaasi
waxaana loo kala tartamayaa kursiga madaxweynenimada oo 3 qofood oo waaweyn ay isku haystaan iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka dalkaasi iyo matalayaasha dowladaha hoose. dalka Malawi ayaa doorashadan waxay noqonaysaa mid sidii caadiga ahayd u bilaabatay oo dadka codadkooda ay dhiibteen. daayir fara badan ayaa codeynaysa doorashadaas oo ah mid dimuqraadiya. guddiga doorashada ayaa laga sugayaa in 8 maalin gudahood ay ku dhawaaqaan codadka la dhiibtay guud ahaanba ka soo baxay. madaxweynaha talada haya ee wadankaasi Malawi Peter Mutharika ayaa isagu markii labaad doonaya in la soo doorto, laakiin waxa kursiga kula tartamaya oo si weyn ugu dagaalamayaan halkaasi madaxweyne ku-xigeenkii Solios Jilma oo isaga markii ugu horeysay la tartamaya, laakiin xisbiga faca weyn ee mucaaradka ayaa isaga waxa uu tartamaya Lusaras Jaguera oo mar kale madaxda wadankaasi ay food isgelinayaan. dowladda South Africa waxa ay ku gacan sayrtay hadal ka yimi mid kamid ah wadamada ugu quwadda badan ee dunida Mareykanka, waxaana la sheegay in hadalkan uu ahaa in wasiirkii hore ee maaliyadda wadanka Mozambique loo gacan geliyo wadanka Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa ninkaasi ku soo adeysay inuu galay falal la xiriira dhinaca musuqmaasuqa. xukuumadda Pretoria ayaa gaashaanka u daruurtay hadal uga yimid dowladda Mareykanka oo sheegayay in dalkaasi loo gacan geliyo wasiirkii hore ee dhinaca maaliyadda ee wadanka Mozambique Manuel Chang oo loo haysto eedeymo la xiriira dhinaca musuqmaasuqa. dowladda Mozambique ayaa waxay sheegtay in aanay ka suuragelin tallaabo noocaasi ah inay qaado. ujeedada ugu weyn ayaa waxay tahay in cadaaladda la horgeeyo maadaama la sheegay inuu musuqmaasuqay lacaga ama aha oo loogu talagalay dalkaasi Mozambique. Michael Mutha oo soo saartay warbixin South Africa ay sii daysay ayaa sheegtay in tallaabadaasi South Africa aanay ka ahayn mid loo qaateena. dowladda Mareykanka ayaa ku soo adeysay wasiirkii hore ee wadanka Mozambique ee dhinaca maaliyadda inuu isticmaaliyay lacago 2 bilyan oo shilinka 2 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo loogu talagalay in dowladda Mozambique deyn ahaan loo siiyay. laakiin bishii December aynu ka soo gudubnay ayaa jeelka loo taxaabay ninkaasi oo ku sugan gudaha wadanka South Africa. maxkamad ayaa xukuntay bishii la soo dhaafay in wadanka Mareykanka lagu wareejiyo, laakiin may dhicin. laakiin hadalkan ka soo baxay dowladda South Africa ayaa waxa uu noqonayaa mid dharbaaxyo ku noqonaya dowladda Mareykanka oo iyaga quudareynaysa ninkaasi gacanta loo soo galiyo lagu haysto musuqmaasuqa. isla wararka dalalka koonfurta Afrika ku yaala naga soo gaaraya ayayna ku guda jirnaaye dalka Zimbabwe ayaa waxaa sare u kacay qiimaha la kala shaysta shidaalka. arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay boqolaal ruux oo ku nool gudaha wadankaasi oo iyaga codsanaya in dowladda ay la timaado isbedel dhinaca nolosha maadaama shidaalku uu yahay mid si weyn ugu tiirsan dhanka nolosha iyo maciishada guud ahaanba dowladdaasi Zimbabwe. dowladda Zimbabwe ayaa mar kale lagu kordhiyay shacabka qiimaha la kala siisanaya shidaalka gudaha dalkaasi. waa markii labaad ee sanadkan oo qiimaha shidaalka xaddi badan oo aad u kaco. bilowgii bishii January ee sanadkan 2019 ayaa wadankaasi waxaa gelgelay dibadbaxyo dad fara badan ay isugu soo baxeen kadib markii laba laab uu tagay qiimaha shidaalka la iibsanaya dunida. Zimbabwe ayaa hadda noqonaya dalka ugu shidaal qaalisan dunida ee la kala iibsado, waxaana 50% dadku ay sheegayaan in hadda xaddiga la iibsanaya shidaalka uu halkaasi gaaray. dowladda war soo saartay ayaa waxay sheegtay inay la tacaalayso dhibaatooyinka lacagaha la kala bedelo ee loo yaqaan sarifka gudaha dalkaasi iyo waliba korontada iyo shidaalka la soo waarido. wasiirka wasaaradda maaliyadda wadanka Zimbabwe Giorgio Gafamatanga ayaa isagu waxa uu sheegay qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa inay canshuur dhaaf u sameyn doonaan shidaalka si hoos looga dhigo dhibaatooyinka shacabku ay ku qabaan shidaalka. madaxweynaha wadankaasi Emmerson Mnangagwa ayaa sanadkii 2017 markii uu ku soo baxay doorashada waxa uu ballan qaaday inuu dalkaasi u horseedi doono barwaaqo shacabka wadankaasi oo ah kuwa ku nool xaddiga saboolnimada ee ugu hooseeya dunida qaarkood. laakiin hadda dhammaan ballanqaadidii ayaa u muuqanaya kuwa aan suuro gelin, waxaana shacab fara badan ay ku nool yihiin sanado mugdiya tan iyo markii xilka lagala wareegay madaxweynihii ugu horeeyay wadankaasi Robert Mugabe oo muddo dheer ka talinayay dalka Zimbabwe. akhyaarteena daawanaysa warbixintaasi ayaa ugu dambeysay doorkii dunida oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN. Cabdicasiis Barrow ayaa idin sheegayay tan iyo kulanti dambe dhamaantayaga waxaan idin leenahay isma dhaaf.